ingiriiska ayaa u soo baxay semifinaalka markii labaad oo xiriir ah waxayna wajihi doonaan Hollandeeska kulanka dhici doona Dortmund caawa. Qabaradkii fiicnaa ay ka soo gaareen Switzerland wareegga 8 ayaa keentay inay u soo baxaan wareegga afardhamaadka. Saddex waxyaabood ayaan ka soo qaadan doonaa kulanka xiisaha badan England, Netherland, Keane, Gogbo oo Spain waqtigan cabsiin kara. Southgate ayaa muujiyay adkaysi wuxuuna sii wadaa wax walba uu sameeyo xulkan si ugu riyoodaan riyadoodii ahayd inay koobka qaadaan. Beddelka saddexda dambe ayaa u muuqday mid wax ku ool ah, laakiin iyadoo ciyaartoydii ka soo laabteen dhaawac ganaax sida ay tababaraha u maareyn doonaa caawa oo su'aasha la isweydiinayo. Dhinaca kale, su'aalo kale ayaa weli ku hareeraysan taamaanshaha iyo waxtarka kabtan Harry Kane ay u badan tahay in keedka lagu soo bilaabo. Netherland ayaa ka soo gudbay wareegga 8 Turkiga waxayna caawa isku hayaan inay cagta saaraan finalka tartanka. Waa markii afraad ay isku arkaan Ingiriiska iyo Netherland tartan weyn. Orangeska waxay 3 gool ku badiyeen Euro 1988 waxaana 3 goolba u dhaliyay Marco van Basten. Waxaa ku xigay barbaro gool la'aan koobkii adduunka 1990 waxaana 4 gool ku badisay Ingiriiska Euro 1996. Ingiriiska balse kaliya hal kulan 9 kulan ugu dambeeyay la ciyaareen Netherland tartamada oo dhan 4 barbaro iyo 4 gool daro. waxay gool ku badiyeen ciyaar saaxiibtinimo ka dhacday Amsterdam bishii March 2018. Ingiriiska ayaa aaday waqti dheer ah labada ciyaarood Euro 2020 ilaa hadda. kaliya Portugal Euro 2016, Spain Euro 2020, Talyaaniga 2020 Euro ayaa weligood aaday waqti dheer ah 3 jeer halka oo final ah. Netherland ayaa badisay 2 kulan oo kala duwan iyadoo laga dhaliyay goolkii ugu horeeyay Euro 2024 iyagoo 2 gool ku garaaca Poland wareeg gurubyada iyo Turkiga ee wareegga 8 isku arkeen.